qaarka horreeyo hodanaana dhaafe halkii loogu mahadnaqay ka habaabi mayside kii noo hagaage noqon loo hanweyn yahay muwaadiniinta sharafta badan ee jamhuuriyadda somalilan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca dowladda jamhuuriyadda somalilan waxaan idinku hambalyeynayaa curashada sanadka cusub ee 2026 sanad kasta oo cusubi waa fursad kale oo ay tahay inaynu si dhab ah isu qiimayno qof ahaan iyo qaran ahaanba inaynu dib ugu noqonno guulaha aynu ka gaadhnay shaqooyinkii inoo yaalay sanadkii hore casharada aynu ka baranayno caqabadihii aynu soo marnay iyo inaynu dejisanno qorshayaasha shaqo ee sanadka cusub aynu ku gaadhayno hiigsigeenna qofeed iyo ka qaranba sanadkii hore waxa uu qarankeenna u ahaa sanad hoodo badan oo ay shaqooyin iyo mas-uuliyado badan gudanay waxau ahaa sanad nabadeed oo aynu soo afjarnay colaado iyo khilaafaad xanuun badan sanad aynu xoojinay midnimada bulshadeenna korna u qaadnay awoodda iyo kartida ciidamadeenna iyo hay-adaheenna ammaanka ee mar kasta heeganka u ah ilaalinta dalka iyo sugidda xasiloonidiisa waxa uu ahaa sanad aynu kor u qaadnay dowlad wanaagga shaqo fiicanna aynu ka qabannay dib u habaynta cadaaladda dhaqaalaha waxaynu ka galnay dadaallo badan oo ay ka mid tahay inaynu waxsoo saarkeenna u raadinay maalgashi dibadeed iyo mid gudo ah labadaba waxaynu ka filaynaa natiijo kor u qaada kobaca dhaqaalaheenna waxaynu dib u eegnay qiimaha iyo helitaanka adeegyada nolosha muhiimka u ah oo ay ka mid yihiin biyaha laydhka waxbarashada iyo caafimaadka waxaa sidoo kale inoo ahaa sanad aynu guul la taaban karo ka gaadhnay diblomaasiyadda iyo xidhiirhka caalamiga ah kaas aynu ugu dambeyntii 34 sannadood kadib aynu maanta ku biirnay dowladaha la aqoonsan yahay ee dunida wuxuu sanadkan cusubi inoo bilowday inagoo kaalin muuqata ka joogna fagaarayaasha muhiimka ah ee dunida inagoo xidhiidho iyo iskaashiyo koraya oo cusub dunida la yeelanayna inagoo codkeenna laga maqlayo meel ka sarreysa sidii hore innaga oo sii xoojinay kaalintii mas-uuliyadeed aynu kaga jirnay xasiloonida iskaashiga iyo horumarka gobolka iyo dunidaba walaalayaal waxay noo bilowday sanad cusub waa fursad aynu ku sii dhammaystiri doonno shaqooyinka inoo socday hindisayaasha iyo howlaha kale ee waaweyn ka shaqayn doono insha allahu innaga oo intii hore ka sii adag kana waaya aragnimo badan waa sanad aynu alla ka rajaynayno inuu inoo sii lamalaabo guushii iyo horusocodkii sanadkii hore inuu inoo noqdo sanad aynu ku sii korayno aqoonsiga caalamiga ah ee jamhuuriyadda somalilan sugayso sanadka cusub ee 2026 waxaynu u bixinaynaa sanadka aqoonsiga iyo midnimada waxaan idinku baaqayaa inaynu daacadnimo isaga kaashanno inagoo gacmaha ishaysanna aynu wada ilaashanno dalkeenna fashilinana cid kasta oo hageerdaamadiisa ka shaqaynaysa waxaan alla ka baryayaa inuu inoo noqdo sanad badhaadhe iyo mid barwaaqo sanad farxad iyo bishaarooyin kale oo waaweyn inoo xambaarsan waxaan ku soo xidhayaa qayb ka mid ah murtadii abwaan xuseen aw faarax dubbad qaarka horreeyo hodanaana dhaafe halkii loogu mahadnaqay ka habaabi mayside kii noo hagaage noqon loo hanweyn yahay allaha ka dhigo
sanad kale oo Somaliland horumar iyo aqoonsi buuxda u kordho. Alle ha ilaaliyo Somaliland dadkeeda iyo dalkeeda.